السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا أي بيشو تهاي شنية طبعاً كبيشة ماي لبعض كون يلحية طبعاً كا هيدا أصل يضاق عشان إسكدوها قبل كهود يرمان معمول كقبل كلها الدجاج كوحها لأن يرضى سبورتس waxaanu halkan ku furaynaa koob ay ku tartami doonaan kooxo kala duwan ee gobolka koobkan oo laba ujeedo leh ujeedadiisa koowaad waxay tahay sidii dhalinyarada looga wacyi gelin lahaa aafadan tahriibka ee ay dhalinyaradeenii ku halaagsantay isla markaana loogu jihayn lahaa dhinaca sportska iyo kubadaha mar labaad ujeedada labaad uu leeyahay waxa weeyaan sidii ama koruqaadka xuska ay dhiilmeyga oo aynu xusayno sanad guuradii 25aad maalintii ay xornimada la soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baad mahadsantihiin soo qaybgalkiina balaaran iyo kooxaha u soo diyaar garoobay maanta ciyaartoodii aan ku bilaabaanba insha Allah tartanku wuxuu noo socon doonaa muddo 4 cisho ah 4 cisho waxaan rajaynayaa in koox waliba ay ciyaar wanaag soo bandhigto isla markaana guushu waa laba dhinac mid bay jirtay in la soo dul qaato akhlaaq wanaag isdhaxgal iyo saaxiibtinimo inay soo jiido ciyaartu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ku soo dhaweyn doona isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Hawd Eid in Ciise ku soo dhaweedeys maanta run ahaantii ugu horeyn waxaan halkan ka soo mahadnaq uga jeedinayaa ururka asal oo run ahaantii hawshan iyo koobkanba nagala qayb qaatay arrinkan isaga waxa kaloo halkan ka salaamayaa maayirka oo maanta halkan hormuud waa dhalinyaradiisii iyo xogayaha dawladda hoose iyo mas'uul khadar oo ka tirsan asal run ahaantii haddaan in yar ka taabto wareegan waxaan u qabanay 6 kooxood oo heerka koowaad ee gobolka Hawd caasimadiisa Beelgubadle oo run ahaantii aan maadaama dhibaato weyn oo aafo dhibaato weyn oo ku dhacday dhalinyaradeenii oo keentay inay tahriibaan dhalinyaradeenii iyadoo ay ka damqadeen dhalinyarada asal runtii inoo keenay koobkan oo kulay laba munaasabadood isku saaran ah tan maanta aynu joognay iyo ta 18 May shalatan guuradii ka soo wareegtay xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii lagu dhawaaqay wareeg soo dhaweeyna wanu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay asal marka dhowr jeer horena tartan baad u qabatay insha Allah billahi kariim saa iyo sileeg baynu xiriir wanaagsan u yeelan doonaa wasaaradaha insha Allah waynu soo dhaweynaynaa iyo gobol ahaanba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay'adda asal oo siyaasadeedu ay tahay sidii dhalinyarada loogu horumarin lahaa ama looga ilaalin lahaa waxa laala wixii xun ama mukhadaraada iyo sidii ay tahriibta u joojin laayeen sidoo kale ay kubadda u ciyaari laayeen koobkan waxay ugu magac dartay jooji tahriibta oo ciyaar kubadda cagta sida daraadeed hay'adda asal oo mar iyo 2 iyo 3 ba timi gobolka Hawd oo ka qabatay in badan aad baan ugu mahadnaqayaa aniga ku soo dhaweyn doona maayirka degmada Beelgubadle alxamdulillaah rabbil caalamiin marka hore waxaan ku salaamay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tartankan ciyaaraha horta marka hore waxaan ugu mahadnaqayaa hay'adda asal oo soo qaabisay tartankan markii ugu horeysay maahe dhowr goor horena wax badan bay ka qabatay gobolka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa cidii soo qaabisay sidoo laftiisu qayb laxaad ayuu ka qaatay isna aad baan ugu mahadnaqayaa marka horta tartan waxa yiraahdaa jooji tahriibta oo kubadda ciyaar marka waxa loo baahan yahay 4 cisho la ciyaarayo in si akhlaaq leh oo adab leh loo ciyaaro oo aan wax khilaaf aan dareemin ta kale waxaan u sheegayaa dhalinyarada horta inay tahriibtu uga badnaadeen gobolka Hawdnahay oo aad iyo aad baan uga fiicanahay wixii tahriib leeyahay inaan dhulka iska dhigno marka hore marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa in hay'adda asal tartankiina uu inoo furan yahay 4 cisho dhinaca wuxuu ka istay 10 May ayaa marka ayaanta May kadib saaya soo xiray cidii ku guuleystay 6 kooxood marka 6 kooxood waxaan leeyahay qolada dardaarmaya inay koox walba siyeeda si tarbiyaysan u ciyaaraan oo akhlaaq leh oo bini'aadanimo leh marka cidii ku guuleysatay koobkaana in loo hambaliyeeyo. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.